maxay isku hayaan Iiraan iyo Israa'iil xagees ayuu ka soo bilowday dagaalka Israa'iil iyo Iiraan wuxuu ahaa mid qarsoon oo aan shacsanayn muddo dheer waxyaabaha isku hayaan waxa kamid ah siyaasad awoodda gobolka iyo kooxaha hubeysan dagaalkani wuxuu si waadax ah u soo muuqday Oktoobar 2023 markii Xamaas weerar culus ku qaaday Israa'iil markaasna ay Iiraan taageertay Xamaas taasoo Israa'iil ka dhigtay inay duqeyso qunsuliyadda Iiraan ay ku taala Syria bishii Abriil 2024 waxaana ku dhintay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ee IRGC Iiraan waxay ku jawaabtay iyadana in ka badan 300 oo gantaal iyo drones oo ay ku weerartay Israa'iil Abriil 2024 weerarkaasi wuxuu ahaa mid toos ah waana markii ugu horeysay ee Iiraan iyo Israa'iil ay si buuxda isu weeraraan maxay isu hayaan Israa'iil iyo Iiraan waxyaabaha isku hayaan waxa kamid ah arinta Falastiin Iiraan waxay aaminsan tahay in Israa'iil ay xoog ku haysato dhul Islaam halka Israa'iilna ay rabto inay iyadana ka takhalusto dhammaan dadka Falastiiniyiinta Iiraan waxay taageertaa kooxaha hubeysan ee ka dhisan Falastiin sida Xamaas iyo Jihaadul Islaami waxay kaloo isku hayaan awoodda bariga dhexe iyo cidii ku awood badnaan lahayd bariga dhexe Iiraan waa wadan Islaam ah oo Shiica ah halka Israa'iilna ay tahay wadan Yuhuud ah dagaalka hadda socda waa mid dunida dhan gelgelay kaasoo aan la ogeyn wuxuu ku dhamaan doono balse ay kula tahay inuu guuleysan doono labadaas